السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سودو هذا بليس أديكو تايمركو هذا إتمادي سبسكرايب يسار channelka هذه أول أنا اللي شوفت إنه لايك جري هذا نقول عصب تاي لايك تاكا هالمامن ما أنتو حني وذا عشر إن بقى عادي هنا عشر كان وحن أقول تلقى لي عرور تشير التضابط السنة إلا وحكا كوريا أو طبعا إلا وحكا سي كوريا هو يوم بدن أو واحد شيرو إن فريم يسود دري مرول بيجا عتصده وحيابها هو يوينك نوتشينايو هو يوينك milooyinka iyo hooyooyinka aan nuujineynin laakiin ilmo korinta ku jiro naftooda ay ku naaxi karaan ama hadii kalmiisaan la'aanta hayso kor ay uga soo qaadi karaan caafimaadna ay ka heli karaan hooyooyinka laba qayb ay isugu jiraan qaybna miisaan dhimis ay rabaan qaybna waxay rabaan waxyaabo miisaankooda kor u soo qaadayo ay ku noqdaan kushkush qurux badan ma fahamteen laakiin waxaan igu jiro caruurta cashirkan waxaan ugu talagalay hooyooyinka iyo caruurta jira 7 sano ilaa wixii ka koreeyo in ay iga faa'iideystaan hooyooyinka meeshan waxa ku jiro waxay tahay waa bakeeri haafkiisa ama bakeeri kala barkiisa oo boorashka nooci markaas aad haysatid ama gasaca ku jira ama caaga ku jira ama baakada ku jiro muhiimada waxay tahay boorashka wanaagsan in aad haysatid waxa kale oo noogu jiro geedkan jaalaha waa flaxseed hal qaado oo flaxseed cid walba ayaa garanayso waa flaxseed waxa kale oo aan u baahanahay chia seed waxyaaban aan isku dardareeno waa waxyaabo insha Allah miisaankaaga waxyaabahan aan nii sheegayo waa waxyaabo 3 maalmood gudihiis aad ku dareemi doontaan miisaan xoog leh oo waliba aan caadi ahayn ma ahan wax qiyaali ma ahan wax kiimikaal laakiin waxa jiro waxyaabo si degdeg miisaankaaga u soo celi karo laakiin aadan ogeen cashirkan ka faa'iideyso hadii aad tahay qof raadinayo miisaan kordhin ama ilmihiisa u raadinayo caruurta wax bartaan had iyo jeer miisaankooda hoos ayuu u dhacaa waxaasna waxa u keenayo waana siina la'aanta ay helaan mar walba iyo waqtiga badan ay ku bixiyaan waxbarashada iyo hooyooyinkii oo markasto ka caajiso caruurtaas oo aysan siinin cuntooyin kaamil yeelo jirkooda inuu u soo celiyo waxyaabahan maanta waxaan u doortay inaan igu soo gudbiyo halkan waxay tahay markaan arkay fariimo badan ee hooyooyinka mar walba ay ii soo dirayaan haday ahaa lahayd dhanka TikTok iyo WhatsApp-ka intaba ee mar walba iga codsanayaan waxaan gartsaday in aan ii soo gudbiyo waxyaabo miisaanka ilmihiina kordhinayo meeshan marka isugu geeday chia seedkii hal qaado iyo flaxseedkii hal qaado boorashka bakeeri haafkiisa biyo ayaa la dhigay 15 daqiiqo ayaa waxa la dhigaysaa hal bakeeri oo biyo ama hal galaas oo biyo ayaa la dhiganaysaa waxa kale oo u baahan tahay timir 8 xabo oo timir lafta ayaa ka soo bixinay timirti ka bacdi waad soo qaadanaysaa timirta waxa loo isticmaalaa mar walba waan sheegaa waxyaabaha miisaan kordhinta ayaa loo isticmaalaa miisaankana kor ayay ka dhigtaa timirta mar walba oo miisaankaaga aad aragtid inuu siyaaday waa mar walba timirta aad isticmaashid fahamteen waxa kale oo u baahan tahay hal bakeeri haafkiisa oo lowska caadiga almoonka maaha waa lowska Soomaaliga oo lows caadiga ayaad soo qaadanayda qolofka ayaad ka bixinay hadii aad rabtid waa duwanay hadii kale tan sidiisa asagoo oo ceyrinkiisa ayaa waxa ka sameeysanay soo diyaarsanayda waxa kale oo u baahan tahay hal xabo oo moos bisil intaas waxaad ku shubanayda blenderka ayaa ku shubanayda ama mashiinka cabitaanka lagu shiido ayaa waxa ku shubanayda mooski timirti iyo flaxseedki iyo boorashki aad soo diyaarisay ayaad ku shubanayda intaas marka isugu geesid waxa kale oo u baahan tahay waxay yihiin waa caano hal bakeeri ama hal galaas ayaad u baahan tahay ma fahamte intaas ayaa u baahan tahay waxa kale oo ku darsanayda dheeri hal xabo oo tufaaxa jaalaha ama ay tufaax markaas aarabtid aad soo qaadanayda waad soo dhaqay waad soo jarjarayda hal meel ayaa isugu geenay marka aad shiidid oo ay ka dhigtid shiiditaan dhameystiran aad siidid wuxuu ku noqon doonaa insha Allah
cunto aad u fudud laakiin miisaanka maasha Allah tabaaraka raxmaan aad u kordhinayo maalinkii 3 mar ayaad isticmaalaysaa quraacda iyo qadada iyo cashada ayaad isticmaalaysaa 3 maalin kaliya miisaankaaga ku tijaabi arag cunugaaga si adigana isticmaal natiijada ka soo baxdana qaybta hoose oo commentiga ama hadii kaleeto guruubiyada ama fariimaha ay soo dirtiin meesha ay igu soo gudbiya insha Allah waxyaabahan aan soo gudbiyay waa waxyaabo aan hubo waxay tirayaan waa waxyaabo miisaanka ilmihiina ama miisaanka naftiina kor u qaadayo si wanaagsanna niga dhigayo miisaan dabiici ah oo chemical aadnan ku keenin aad ku keenteen waxyaalo loo baahan yahay oo jirka bini'aadanka oo daciifka noqday ayaa loogu talagalay sideedaba miisaan kordhinta waxa raadiyo dadka miisaan la'aanta hayso ma fahamteen qof miisaanka iska ridila oo horaba u barwaaqaysnaay miisaan kordhin maraadiyo xaqiiqda taas waaye hadaa aragtid qof miisaan raadinayo waxay tahay fitamiinaadka jirkiisa wuu lumay ama daciif badan ayaa jirkiisa ka jiro oo xagga miisaan la'aanta heeso kaleeto ay wuxuu dareemayaa naaqusaad badan oo jirkiisa ku dhacay hooyo kastan inay garatay ayaan rajeynayaa cashirkan sida aan igu sheegay uu isticmaalo haduu rabbi idmo intaas marka isku shiidid oo maasha Allah tabaaraka raxmaan si fiican ay soo ka dhex galaan 3 mar cun ama isticmaal caruurtaadana siiso 7 sano haduu jiro cunugaaga ilaa ilmaha ka koreeyo 10 sano ayaan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan fiidiyogan maadaama uu yahay fiidiyo tayo wanaagsan leh caruurta miisaankooda iyo dadka waaweyn intaba hooyooyinka qaasatan aad ay uga faa'iideysan karaan wiilal iyo gabdho way ka faa'iideysan karaan laakiin aniga cashirkan waxaan ugu talagalay gabdhaha ayaan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan iyo gabar kasto oo hooyo ah ama aan hooyo ahayn oo miisaan kordhin raadinayso muuqaalka cashirkeena ama cashirka ka hadlidiisa intaas horta noogu egyahay cashirkan waxa ku jiro fitamiino isku dhameystiran miisaan kordhin lafa kobcin iyo jirkaaga in mar walba uu helo fibers badan oo uu ka helo waxyaabahan la isku dardaray flaxseed waxa ku jiro folic acid ayaa ku jiro omega 3 waa laga helaa waxyaabo badan oo waxa ku jiro jirkaaga uu u baahan yahay markasto aad isticmaalaysid waxyaabaha cuntooyinka ah aad jiidanaysid xitaa waa ku darsan kartaa waa maasha Allah tabaaraka raxmaan marka cashirkan uga faa'iideeyo hooyooyinka adinkoo kala ah nafsadiina awal shay uga faa'iideeyo insha Allah si mar walbo aad u heshaan waxyaabo tayo wanaagsan oo jirkeena ku soo kordho cashirkeena halkaas uu noogu egyahay hooyooyinkan waxaan rajeynayaa si wacan inay uga faa'iideystaan cashiradan maadaama ay yihiin cashiro waxtar badan leh oo aan ugu talagalay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo caruurtooda waxaana aad ugu faraxsanahay gabdhaha soo tijaabiyay cashiradii Ramadaankii dabayaaqadiisa aan soo galiyay oo Ilaahay mahadiisa ila soo wadaagay miisaanka ilmahooda marka hore intuu ahaa maantana intay taagan yihiin waana waxaan aad ugu farxay marka bulshada wax mar walba ay u soo gudbinaysid wixina aad ogtahay wax natiijo wanaagsan ay yihiin inay macnaha bulshada ay ka heli karaan waxa natiijo wanaagsan waad ku farxaysaa qaabka aad u sameeyday hadii ay u soo gudbiyaan inay u sameeyeen ka bacdi natiijada ay ka helaan aad u sheegtay wallahi waa ku farxay maskaxdana way ku dagaysaa waana ku faraxsanahay hooyooyinkaasna halkaan uga mahad celinayaa dhowr gabdhood ay la wadaagay waxaan leeyahay halkiina ka sii wada dadaalka markasto wixii aad hirgelisid ama aad ku dadaashid kuma qasaareysid taas waa wax la hubo mar walbo siyaado ama waxaad helaysaa wax ka farxiyo isku day marka hooyo mar walba inaad dadaashid caruurtaada inaad u dadaashid naftaada inaad u dadaashid hooyo qurux badan oo jirkeeda ka fikirta inaad noqotid hooyada markay maqaarkeeda jirkeeda quruxdiisa timaheeda ay ka fikirto ay wixii ka fikiri kartaa caruurta qaabkii markaas ay noqonayaan laakiin hooyo iska xanuunsan ama stress ku furan ama wahsi badan ama iska caajis badan waxa way ilmo ma korsan karto ilmaha waxay u baahan yihiin halgan badan waxay u baahan yihiin waxyaabo badan in loo sameeyo waxay u baahan yihiin nadaafad aad u badan ay u baahan yihiin waayo waa mas'uuliyad Ilaahay uu ku saaray adigana aad dareemi kartid
haddii aad tahay qof waxgarad ah. Isku day marka in mar walba nafsadaada aad hormarsiidid, nafsadaada waxyaabaha u fiican oo dabiiciga ah oo bilaa sokorta ah oo caafimaadka aad ka heli kartid isticmaal. miisaankaaga aad hadduu u badan yahay waxaa jira waxyaabo simbal ah haddii aad isticmaashid miisaanka aan kugu kordheynin laakiin maqaarkaaga aad u ilaalinayo. markasta maqaarka duuduubmay ama hooyooyinka da-dooda aan u qalmin waxyaabaha u keeni kara waxaa ka mid ah hooyada mar walba inay cunto lagu aqriyo oo la yiraahdo cuntada iska buuxisay ama cuntada badan oo kaleeto miisaanka macnaha miisaan kordhin badan ay kugu sameynaydaa in cuntadii oo dhanba ay halkaas ay ku tuurtay kabacdina uu ku dhacay maqaarka inuu ka gaboobo iyo fikir badan oo ayada ay isgelisay. marka hooyo kasta waxaan u rajeynayaa caafimaad cibaado suuban leh inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo. biliis hadaa intaan ila soo gaarto muuqaalka noo like gareey noo share gareey. wassalaamu calaykum.